الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo gudbinaynaa annagoo ah culummada Soomaaliyeed oo kulmisay dalladda majlis culamaa sunnah ee magaalada Mombasa, Kenya. waxaan soo gudbinaynaa war murtiyeed ku aadan xaaladda dagaalka ka socda magaalada Lascaanood. caawo ay taariikhdu tahay 24 Rajab 1444 hijriga ku aadan 15 bisha labaad 2023 waxaa kulan isugu yimid magaalada Mombasa dalladda majlis culamaa sunnah kadib markii culummadu si qoto dheer u falanqeeyeen xaaladda dagaalka ka taagan magaalada Lascaanood. waxay isla qaateen qodobada soo socda. qodobka koowaad, culummadu waxay si adag u cambaaraynayaan duqaynta culus ee ka socota magaalada Lascaanood loona geysanayo dadka rayidka ah iyo goobaha muhiimka ah ee danta guud sida isbitaalada, masaajidda iyo wixii la midka ah, taas oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka jilicsan sida waayeelka, dumarka iyo carruurta, keentayna dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur aad u ballaaran. falkaas oo dulmi ah diinteennuna naga xarrimtay. nabigeenna calayhi الsalaatu wassalaam waxaa ka sugnaaday xadiiثulqudsi oo uu soo saaray alimaam Muslim fii saxiixihi: yaa cibaadii innii xaramtu الظulma calىa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamuu. yaa cibaadii addoommadaydow, innii xaramtu waan xarrimay addulma dulmiga calaa nafsi nafteeda aan ka xarrimay, wajacaltuhu waxaan yeelay dulmigii baynakum dhexdiinnana muxaraman mid xaaraam ah ee falaa tadaalamuu ha isdulminina. sidoo kale nebigu wuxuu yidhi: ittaquu dulma, war dulmiga ka fogaado iska ilaaliya oo ha isdulminina. fa ina adulma, maxaa yeelay dulmigu, dulumaatun waa mugdiyo yowma alqiyaama, maalinta qiyaamo. rawaahu Muslim. qodobka labaad, culummadu waxay soo jeedinayaan in ciidanka maamulka Somalilan laga dulqaado magaalada Lascaanood si ay u dhaqan gasho xabad joojinta, loona helo fursad dhexdhexaadin iyo wada hadal. qodobka saddexaad, culummadu waxay ku baaqayaan in la helo guddi dhexdhexaad ah oo ka kooban dad ahlulxalli waalcaqdi ah, una istaago xal u helidda dhibaatada Lascaanood. qodobka afraad, culummadu waxay taageerayaan baaqyadii culummada Soomaaliyeed ay soo jeediyeen. qodobka shanaad, culummadu waxay ugu baaqayaan labada dhinac ee dagaalamaya iyo sidoo kale
dadka baraha bulshada adeegsada in ay ka waantoobaan hadallada xanafta leh ee sii hurinaya dagaalka iyo dhibaatada. qodobka lixaad, culummadu waxay ugu baaqayaan dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay u gurmadaan dadkii ka barakacay magaalada Laascaanood dhibaatadana ay ka soo gaartay dagaalkaas. qodobka toddobaad, ugu dambaystii qodobka toddobaad, culummadu waxay u tacsiyeynayaan dhammaan dadkii ku dhintay dagaalkaas. intii ku dhaawacantayna Allah subxaanahu wa tacaala ha caafiyo. allah waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala in colaadaas nabad uu ku bedelo, noogu bedelo, dadka Soomaaliyeedna maslaxadooda uu garansiiyo. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بيانكاس الأخري مجلسكو إذل وأسكو وافقسني هاي وانا أيدايا وانا تاغيرايا. أنا وكمدا علماء مقالة سومالية مقالة منباس علماء الصومالي. تعليق لما سبق، وحاربا إنن حسوسية تتك الدقالة معي أحاديثتان سوسعت. waxaan xasuusinayaa dadka maamulka hogaaminaya dulmiga xumaanta uu leeyahay iyo qofka madluumka ah in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ducadiis iyo baridiis uu aqbalay. xadiidkii Mucaad bin Jabal radiyallahu anhu, nabiga salawaatullaahi wa salaamu alayhi markuu u diray Yemen dardaarankiisa ka mid ah xadiidkaas oo ah xadiidka waa dheer yahay: ittaqi dacwat almadluum, waraka cabso oo ka baq Mucaadow ducada madluumka. Mucaad oo saxaabi jaliil ah ee dardaarankan wasiidan la siiyay. ittaqi dacwat almadluum maxaa yeelay fa innaha laysa baynaha wa bayna allahi xijaab. maxaa yeelay baryida qofka madluumka ah oo dhibanaha ah ducadiis iyo Allah subxaanahu wa ta'aala waxa u dhahay malaha, macna waa la aqbalaya waay. markan dulunka aad wadid haddaadan ka reebtoonanin oo aadan ka joogin qofka madluumka dhibanaha ducadiis Ilaahay waa aqbalaya, aday kugu soo noqonaysaa fi mustaqbal. xadiidkaas waa xadiis xasan saxiix waay. nuqtada saddexaad oo weliba ayadana ku saabsan dadka dagaalamaya oo labada dhinacba inay ka fogaadaan dhaqan xumada. dagaal waa dhaca, harbi lahu qawaaniin, dagaalka qawaaniin uu leeyahay. waxaa ka mid a markaan waxyaabaha la sameynaya hadda labada dhinacba ay sameynayaan oo shareecada islaamka ka fog, inkastoo dagaalka nafsiba xaaraan u yahay, laakiin waxyaabaha raad xun reebay ka mid ah oo fil mustaqbalka raadad xun dadka ku reebay. qofka maarta dadka dhinteen dagaalka ku dhinteen amwaadda ah oo lagu ciyaarayo, waxaas waxay reebayaan maaragtay aathar xun ay reebaysaa, labada dhinacba ku reebaysaa. waxaad ogaatiin intiina dagaalamaysa dagaalku waa istaagayaa mahama taala, inkastoo Ilaahay ka baryan subxaanahu wa ta'aala inuu Ilaahay naga joojiyo, laakiin dagaalka maalin buu istaagi doonaa. laakiin dhacdooyinka xunxun raadad xunxun ay reebi doonaa oo fi mustaqbalka oo fil ajyaal ah. markan tasarrufaadkaas xun waa in laga fogaadaa. nuqtada ugu dambaysa, Allah subxaanahu wa ta'aala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'il husna wa sifaatil ula in Ilaahay maartin naga dami dabkaas howlacay fitnadaas meesha hadda ay joogto Ilaahay maartin nooga reeba. marka Ilaahay naga aqbal dadka, Ilaahay naga aqbal fitantaas, Ilaahay naga jooji dabkaas howlacayna
ilaahay naga joojo billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بيانك لسو جيديي وشيخنا ونسو جيديي كدبنا وراعي تعليق شيخنا الفاضل وحان راعينا إن شاء الله تعالى دردارا كان وحو كسابسن yahay dadka dagaalamahayo guud ahaan in Allah subhanahu wa ta'ala ay ka cabsadaan لأن sideedaba dagaalka waxa la dhahaa wiil kuma dhasho wiil baa ku dhintaa nabigeena alayhi salatu wassalaam wuxuu leeyahay xadiis uu Abdullah ibn Umar uu wariyay oo Bukhari ku jiro la zawalu ad-dunya ahwanu ala Allah min qatl rajul muslim aw kama qala alayhi salatu wassalaam adduunka oo dhan oo halaagsamo ayaa ka sahlan in qof muslim la dilo khaasatan dilka markuu ku astaysan yahay gardarro iyo dulmi caaqibatuhu wakhiima yani aakhirkiisa raad xun ayuu dhaafayaa siday culammadaba ay noo sheegeen marka hadda maanta wax dhacayo oo magaalada Laascaanood ka dhacayo xaqiiqatan dagaal waa la dagaalamaa laakiin in macnaha magaaladii la duqeeyo in guryihii la baabi'iyo in hatta lagu fikiro oo la dhaho hatta hadday magaalada ay baaba'do ay dunto yani dib baan u dhisi doonaa in la dhaho hadalkaas waa hadal aad iyo aad u xun oo gardarro ah oo dulmi ah marka nabigeena alayhi salatu wassalaam markii uu umarada jeeshka uu la dardaarmi jiray wuxuu dhihi jiray laa taqtacu shajaratan muthmira geedaha miraha leh goynina bal geedaha qiimaha badan oo timirta ayuu nabigeena alayhi salatu wassalaam uu u sheegi jiray wuxuu kala dardaarmi jiray in odayaasha la dilin iyo dumarka iyo caruurta iyo meelaha lagu cibaadeysto hadda waxyaalaha aan arkayno waa waxyaalo ka duwan dagaaladii caadiga oo sokeeyaha oo markasta dhaco wax ka duwan ayaan aragnaa arrintaasna waxaa waaye qaanuunka caalamka ka mid ma aha dhaqankeena diinta ka mid ma aha marka waxaan dhammaan aan faraynaa ilaahay laga cabsado arrintaasna dagaalkana hal la joojiyo وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما برب ليهي لبا كوخود oo muslimiin ah hadday dagaalamaan in islaax la sameeyo waay marka intaasaan ku baaqaynaa bayaanka si toos baan yani u taageersanahay insha allahu tacaala kii hore culimmadana ay bixiyeen iyo kii maanta majlis culamaa sunna Mombasa laga soo saaray wajazaakum allahu khayran نحمد الله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم waxaanu daba joognaa insha Allah culamadeeni baan weli dhex fadhinaa baaqi baan u diraynaa ee walaalahanaga ee waxa weeyaan dhibka ka dhaxeeyay ee aadka noo murjisay ee xanuunka nagu hayo ee hurda la'aanta ee na dhigay man lam yahtam bi amri almuslimiina falaysa minhum buha walaalkaaga muslimka haddaadan u danqan oo dhibkiisii ku dhibin in laga saaray halis u tahay taaya marka hurda la'aanta na dhigtay ee xanuunka iyo dhibaatada aadka noo xanuunjinay
bilaha hadda la dagaalamay iyadoo muslimiin la wada yahay waa bilihii xitaa jaahiliyatan intaan islaamkaba imaan ee dagaalka waxa weeyaan ee lagu joojin jiray iyadoo islaamba la ahayn oo dadku ay gaala yihiin waa 4 bilood oo rabbi uu ku tilmaamay ashhurul xurum oo bisha rajab ayaa ka mid ah bisha rajab dembiga lagu sameeyo laablaamo wanaagana sidoo kale isaguna laablaab loo qoro markaa buu rabbi yiri bilaha gudahoodii naftiina ha ku dulminina mufasiriintu qaar 12 biloodba dulmiga lama ogolo haddana waxa weeyaan kasii xagdirsan 4 bilood uguma bajiraanba dulmi la galana waxa weeyaan bacda shirki oo in badan waxa way hal aayad aan ahayn oo in badan aayado badan oo rabbi ku xiriiriyay markuu shirki iyo gaalnimo uu tilmaamo dilka uu daba dhigo fala tadlimu fiihinna anfusakum wa rabbi yiri bilaha nashrul xurumka waxa weeyaan naftiina ha dulminina dhunuubta galina dhunuubta waxa weeyaan nafta lagu dulmiyana bacda shirki billah qatliga uwen subhanahu alayhi salatu wassalam xadiiskii dheera maxallu shaahidka kaliban kaga soo qaadanayna ijtanibu as-sab'a al-mubiqat markuu naga digayay dhunuubta lagu halaagsamo aan lagu kabsan ee lagu halaagsamo ka dheeraada shirki markuu tilmaamayna shirka la dhulmun cadiim wuxuu ku xujiyay riwaayad waxa way as-sihru wal qatlu dilka kamida tilka waxa way ciqaabada uquubta ka dhasha ama dunuubta ka dhalata wata la gaarsiyo xitaa ibn Abbas markuu tilmaamayay waxa way waman yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam in xitaa laga toobad aqbalin meesha la gaarsiiyay oo meel sahlan ma aha meesha la gaarsiiyay ee dilku inagu aanu sahalsano waxa way dilaaga bari waxa u yaal ee ruuxii uu dilay baa u taagan rabbi sal hada fa bima qatalani ilaahu bal weydiiyo sababka uu ii dilay sababtu dad baad iska duqayn oo maata leh oo caruur leh oo waayeelo leh oo intaa su'aalahoodii baa ku horyaal yaa rabbi sal hada anoo masaajidka ku jiray anoo gurigayga iska fadhiyay anoo danteydii u fadhiyay baa waxa meel iga yimid baan garan waayay oo rabbi sal hada fa bima qatalani oo halka uu ku galay oo dhuunta uu ku galay laf dhungashay buu kugu noqon marka arinka arin sahlan ma aha qaasatan dilku dambigiisu aad buu u weyn yahay marka taa in laga digtoonaado weli tanaasul dadku isu sameeyaan xitaa ruuxa filay uu leeyahay ee waxa in kastoo labadu ay ruuxna dhaalim yahay ruuxna madluum yahay inta badan marka la isu dhaco hadaa dadku inay isu tanaasulaan oo dadka isdhameynaya waa dad walaala ah akhiran waxaanu leenahay insha Allah ilaahu qulubtooda ilaahay inuu sudumo Allahumma alif bayna qulubihim وأصلح ذات بينهم اللهم ألف بين قلوبهم ولا لهن الدقالماي وأصلح ذات بينهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في الله باقي مجلس العلماء كما نقول نسيئة كيننا ونسيح وشينينا ولا لها سيقود هند ولا لها صوماليدا صدن سنة يكبضن بانو دل يبربر لوسو تشري هذا ما أنت وحيد إنه عقلك وشقيه ودل وحو يهي لأوجاده وما أنت لقى فوجاده إن هذا الدب لو صحيح سيو شرعك إسلامك يا عقلك من مكان هي dil wuxuu yahay khasaare mooyaane wax faa'iido laga helo male maamaayi Soomaalida dil nin wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho way marka arintaas inaan dhammaan Soomaali meel ay joogaan bay ka toobad keenaan khaasatan meesha waxa ka socda dhibaatada in Ilaahay u toobad keenaan baan ugu baaqaynaa qodobka kale ee ku soo xiga dilku qofka muslimka ah nusuus badan baa la akhriyay oo de ku tusinaysa xaramnimadkiisa iyo khuduurada uu leeyahay quraankeena iyo sunnada nabiga aad iyo aad saasayna salafku ay dilka uga cabsan jireen Abdullah ibn Umar xadiidka fi sahih al-Bukhari ku sugan hadalkiisa Abdullah ibn Umar waxa kamid ah inna min waradaat al-umur allati la makhraj liman awqa'a nafsuhu fiha safka ad-dam al-haram bighayri hillihi xulay waradaat waxa leeyahay waxyaabaha mahlikaadka ee qofka halaaga
waxyaabaha umuurta mulikaadka maaragtay makhraj aan lahayn iyo meel looga baxo toona aan lahayn qofku naftiisa hadduu ku rido makhraj iyo meel u baxo toona aan lahayn dhiig muslim oo la daadiyey xaaraam lagu daadiye wey idan warataad buu ka cabiray cabdullahi bin cumar waa mahalaka weeye iyo ma'zaq hadduu qofku ku dhaco iyo halaag makhraj iyo meel uu ka baxo toona aan lahayn balka khatarnimadkiisay ku tusinaysaa marka walaalaha waxaan leenahay ilaahay ka cabsada oo waqtigan la jooga maanta khaasatan Soomaali qofka hadduu yahay inuu dhiig u xiisa qabo inuu dhiig daadiyo maba ahaynba inuu cararo ayuu ahayd marka waxaan leenahay ilaahay ka cabsado dhiigu waa xaraam weeyaan iyadoo bil hodhan xaraam tahay haddana bisha Rajab ashhur xurum bay ku jirtaa inay aad iskaga ilaaliyaan oo ka fogaadaan ilaahayna u toobad keenaan wixii horaan ka dhacay wax damana ayna gelin baanu maartay ku taageerayna baaqaas ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa biasmaa'il husna wa sifaatil ula in maartay ilaahay uu qafaansiyo dadkaas maartay isdilahaya ama Soomaali guud Soomaali oo dhanba iyo dulmiga ka jira in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu maartay xaqa uu tuso iyo raacitaanka xaqa waxaan ku gabagabaynayaa bulshaweynta Soomaaliyeed guud iyo dibadba meesha khasaaraha ka dhacay iyo barakaca ka dhacay iyo burburka ka dhacay iyo maatida qaxday inay maartay u gurmadaan sida baaqaba ku jirtay qof kasta oo wax aad gaarsiin karti inaad gaarsiisi waa meelaha ugu muhiimsan weeyaan ina arinta loo istaago hada wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh